kusoo dhawaada barnaamijka chief oo shaqado gurigaaga jooga inaad facebooka lacag ka samaysid dabadeedna dhaqaalaha uu kor u kaco shuruudihii ayaan idiin gudagalayaa horodhicii horey ayaan idinkugu sameeyey haatan dooni maysaan war iyo nacnac fara badan waxaad doonaysaan madaxweynaha mustaqbalku inuu toos u abbaaro meesha ay tahay in la abbaaro si aad adigu u faa'iidid haddii aanan isku faa'iideyn oo aanan isku tiirsanaanin cidna keligeed wax ma noqoto dadku waa ul iyo diirkeed haddaadan war u haynin waagu ha kuu baryo toos ayaan u gudagalayaa shuruudaha loo baahan yahay qofku inuu sameeyo oo aasaaska u ah in adigu facebooka aad markaa dhaqaale ka samaysid mawduucu waa jiif oo jaq waa hagaag marka horeysa waxaad u baahan tahay inaad samaysatid facebook page profile baa leedahay gudihiisaa gelaysaa waxaa laga dhex samaystaa markaas waxaa arkaysaa meel create page ay ku qoran tahay ee fara green ah ama fara green ay ku qoran tahay ayaad arkaysaa fartaa greenka meeshay ku qoran tahay ayaad click ku dhufanaysaa haddaad doonaysaan video muuqaal inaan ka duubtaa laftigeeda oonu ka duubi doonaa laakiin waxaad tihiin dad garanaya waxaas dabcan facebook pageka samaynaysaa pageka markaad samaysad 1 daqiiqa uu kugu qaadanaya pagekiiba abuurtay pagekaas wuxuu noqon karaa any category ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa sports buu noqon karaa wuxuu noqon karaa cunto kalis wuxuu noqon karaa qurxinta dumarka wuxuu noqon karaa tutorial videos looga hadlo waxyaalo kala duwan haddaan idin kala hadlayo kale how to make money online sidee lacag looga sameeyaa online sidee lacag looga sameeyaa wuxuu kaloo noqon karaa macallin xisaabta dhiga oo xisaabta dadka u dhigaad noqon kartaa macallin ingiriiska dhiga mid af soomaaliga dhiga mid diinta dhiga mid carabiga dhiga mid kan dhiga mid maxay dhiga wax allaale iyo waxaad doontid waxaad adigu jeceshahay inaad ka hadashid ayaad bulshada usoo gudbin kartaa mana khasabna maaha inay noqoto hal nooc oo keliya waxyaalo kala duwan bay noqon kartaa oo mushakal ah maanta waxaad ka hadlaysaa fitness sidee xaydha loo shiilaa oo xubnaha kugu xadgudba loo xanibaa ayaad ka hadlaysaa tomorrow waxaad ka hadlaysaa waxyaalo kale oo markaas adigu aad u aragtid muhiim ama bulshadu inay ogaatid tahay ama waxyaalaha soo dhaca markaas ayaad ka hadlaysaa marka waxaan isla garanay shardiga koowaad waa inaad page furatid shardiga labaad pagekaas waa inuu yeesho ama aad gaarsiisid haddii ilaahay yidhaahdo 10,000 oo like inaad gaarsiisid weye 10,000 oo like waa shardiga labaad ee lagaaga baahan yahay shardiga saddexaad waxa uu yahay inaad gaarsiisid 30,000 oo 1 minute total view ah oo markaas last 60 days 30,000 1 minute view total view on your video markaas videoga samaysay isla mar ahaantaana 60 dayskii u dambeysay oo aysan 60 days ka badanin haddii ilaha yidhaahdo marka haddaad 6 maalmood gudahood 30,000 1 minute views ku gaartid waxa aad markaas soo dhaaftay ama kasoo booday caqabadii labaad ama shuruudii saddexaad ayaad kasoo booday waxay ahayd page furo laba waxay ahayd 10,000 oo likes gaar 30,000 1 minute view ayaa inaad gaarti loo baahan yahay 60 maalmood oo soo dhaafay saddexdaa haddii aad soo dhaaftay guushu waa dhowdahay ee xarigga qabo hagaag intaa marka aad samaysid kadib waxaad apply garaynaysaa ama dalbanaysaa in facebook markaas uu ku ogolaado inaad samaysid xayisiin inay ku ogolaadaan bay ku samaynayaan dabadeedna waad sugaysaa ayaa kusoo approve garaynaya kusoo jawaabaya dadka siyaabo kala duwan bay xilliyo kala duwan bay qaadataa qof waxay ku qaadataa 30 days 30 cisho 60 cisho 60 cisho 90 cisho dadka qaar waxay ku qaadataa 3 bilood iyo wax ka badan sidaan sheegayba hadda marka intaas aad samaysid oo kadib lagu soo approve gareeyo waxaad bilaabaysaa waa kii shanaad baan ku soconaa qodobkii shanaad waxaad markaa kadib bilaabaysaa inaad samaysid inaad duubtid 3 daqiiqo videoyaal oo facebook aad soo gelisid iyo wixii ka badan 3 wixii ka yar wax lacag kuma helaysid laakiin 3 wixii ka badan
5 daqiiqo 6 daqiiqo 10 daqiiqo mana rabti inay noqoto video dheer oo dadku ay ku daaraan oo daawanin 10 daqiiqo I think inay aad iyo aad u macaan tahay 15 daqiiqo iyo pushing maxaa lahaa waxaad gaaraysaa yacni dadku inay ka caajisaan wixii marka marabtiin dad ka caajisaan waxaa rabtaa dad fara badan inay ku daawadaan isla mar ahaantaasna dadkii adigu aad u faa'iidaysid wixii markaas aad dareemaysa in lala qaybsado marka lagu soo approve gareeyo 3 daqiiqo aad bilowdid waxaa kuu bilaabanaya xayeysiintii ayaa kuu bilaabanaysa xayeysiintu waa waxa meesha lacagtu ay ka imaanaysa weeye so monetize bay kuu sameeyaan lagu monetize garaynaya dabadeedna waxay ku siinayaan wax loo yaqaano ad breaks oo xayeysiintaas ayay kuu soo gelgelinayaan videoyaashaasaa marka lagaa rabaa inaad samaysid oo aad ku dadaashid samayntooda iyo keenidooda iyo ka shaqayntoodaba goorma ayay qaadanaysaa marka waa laga yaabaa inaad isweydiisid goormay qaadanaysaa inaad maaragtay heshid xayeysiintaas 30 maalmood 60 maalmood iyo wixii la mid ah ayay u badan tahay inaad hesho saaxiibkay nin ah oo isagu asalkiisu Soomaali ah waxaan ogahay 21 days kadib inay usoo jawaabeen oo dabadeedna loo ogolaaday xayeysiintii markii loo ogolaadayna waxaa u bilaabatay inuu dhaqaala sameeyo isagoo tukanaya isagoo cibaadaysanaya isagoo danihiisa wata isagoo shaqaysanaya because videogu maanta uu soo geliyey ayaa socda oo wareegaya intaa kadib waxaa laga rabaa videoyaasha si joogto ah inaad u samaysid oo mar walbaba ay noqdaan videoyaal joogto ah si markaas dhaqaalahaagu uu kordho uu kor ugu socdo videoyaasha xagee ka keena ayaa waxay noqon kartaa laftigeedu su'aal muhiim ah oo isweydiin mudan 3 qaybood ayaa lagu keenaa videoyaasha aad ku keensan kartaa qayb ka mida marka inaan hadda idiin sheega ma raba maadaama qofkii uu bilow yahay laakiin 2 qaybood oo lagu keeno waxay tahay tan ugu wanaagsan waxa weeye inaad adigu duubatid sidee u duubtaa dabcan waxaad haysataa kamarad ama smartphone baad haysataa smartphonekaaga ayaad ku duubaysaa tripod baa u sameynaysaa soo dhaqdhaqaan tripod waxaa lahaa halka 3 lugood leh ee telefoonada ama microfonada lagu istaajiyo maxaa la yidhahdaa kaamarooyinka lagu istaajiyo ayaad u samaynaysaa taasina waxay kuu sahlaysaa inaan kaamaradaas ay dhaqdhaqaaqin oo dadkii markay waxay daawanayaan ay ku raaxaystaan haddaad iminka eegtid kaamarada ee hortaalla anubaa gacmaha iyo korka yarka la dhaqaajinaya laakiin kaamaradu ma raba dhaqaaqi mayso oo meesha ay joogto ka tegi mayso infact waxay leedahay tracking face haddii aan taabto dabca inaan dhaqaaqo way la soconaysaa laakiin anugu waan fadhiyaa therefore ma dhaqaaqayo other than my upper body marka video sida ugu fiican oo loo samayn karaa waxa ay tahay oo ugu muhiimsan uguna dhib yar in aad markaas adigu gacantaada ku duubatid teleefonkaagu editing buu leeyahay waad habayn kartaa aad markaas videoga soo gelisid title qurux badan aad u samaysid oo waxa aad soo gudbinaysid ka jawaaba ka turjumaya dadka qaar waxay sameeyaan waxay ka hadlayaan maalan kasoo qaad dhacdo meel ka dhacday ama gawaari isku dhacday ha ahaato ama meel wax lagu iibinaya ha ahaato ama market suuqay joogaan ha ahaado laakiin titleka wuxuu kusoo qorayaa himlaayo oo isfadeexadaysay qofkii markuu videogaagii furo hadhowto wixii markuu ka waayo wuxuu bilaabayaa inuusan ku aaminin maxaa yeelay been baad u sheegtay sababaha videoyaashan u daawanaysaana intaan idin soo hor fadhiistay been idinma sheegin maxaa yeelay oday baan ahay adduun iyo aakhira kala badan idinkuna igama midin obviously على كل حال فيديوغاس دوبيسا ساسا يليسا markaad soo gelisid videogaas dadkii ayaa daawanaya share bay ku saarayaan 10 kun baad gaaraysaa 30,000 1 minute view baad gaaraysaa processkii waa ku socda so is waiting game waad sugaysaa laakiin maalin walba video upload gale 3 daqiiqo iyo wixii ka badana meesha kale aad ka keeni karto waxay tahay YouTube-ka videoyaasha ku jira soo qaadatid oo aad soo gelisid laakiin you need the permission waxaad u baahan tahay in lagu fasaxo haddaad cid contentigooda iska soo qaadatid oo iska soo gashatid oo hadhowto lagu qabsado waxaa lagu sameynayaa waa lagu qasinayaa ama waa lagu ganaaxayaa
marka lagu garaaxa bejkaagii bay dhaawacaysaa ujeedadii iyo wixii aad rabti inaad gaartidna kuma guuleysanaysid marka ogow videoyaashaas inay yihiin fair use ama ay yihiin kuwo copyright aan lahayn oo la isticmaali karo weliba aan waxaan idinku dhihi lahaa creative noqda mawduuc ay ka hadlayaan soo qaata video ka duuba ka dhexadla sida dadka youtube-ka reaction ka bixiyo kale xoogaa yara qurxiya milix ku dara basbaas ka buuxiya labadaasi baa ugu wanaagsan si kalaa jirto oo videoyaasha in lasoo gataa laakiin haddaadan lacag ka sameynin facebookii inaad lacag kala geliso waa maxayto oo maadaama videoyaashas ay qaali yihiin oo license kusoo iibsanaysid inaad iska daysid sida kuwa music oo kale ayaa kuwala talin lahaa laakiin adigu aad joogatid waxa suurtagala inaad isweydiinaysaan oon hubaa adeerow anagu 30,000 1 minute view sidaan ku gaarno ma naqaano dadku nama yaqaanaan waa kadeed maxaa samaynaa waxaa la yaabaa isleedihiin 10,000 likes adeerow waa nagu badantaa annaga aniga cidna ima taqaano maxaa yeelaa anigu markaan facebooka 3 cisho 4 cisho ka hor samaynayey way ii sahlanayd waxayna iigu sahlanayd ilaahay mahada ka gaadho soomaalida xoogaa yar wejigayga in yaqaanaa ku jirta inta baraha bulshada taqaana dabadeedna qoraal baan sameeya ku yira odaygii halkaana laga helaa maalin gudaheed waxaa dhacday 20,000 oo qof inay nagu soo biirtay qof kasta oo dadkaa ka mid ah waa mahad celinaya shaqsi ahaan ay nagu soo biirtay marka adi waxa laga yaaba saas kuu suurtagelin waxaa laga yaabaa in aad adigu iyo aniga iyo kuwo kaloo badan aad ka fiican tahay oo markiiba dhaaftid laakiin you have to take risk waa inaad xoogaa yaro geesnimo iyo xiniya iska baartid aadna masraxa soo fuushid waxaa jira marka nidaam kuu ogolaanaya oo facebooka la jaan qaadaya shuruucdiisa oo degdegba waxaas aad ugu gaari kartid sidee ugu gaaraa anoo sharciga jebinaynin video baa soo duubtay 3 daqiiqo ah 3 daqiiqo markaa soo duubtid meel waxaa jirta facebooka ku taalo oo layihahda boost waxa weeye videoan inuu dad fara badan gaaro ii samee $5 maalintii ama $10 oo kale ayaad ku qarash garaynaysaa videogaasa wuxuu aadayaa maqshib iyo maqrib bay geynayaan sharcigoodiina ma jebinaysid oo ayagaa raba inaad lacag soo gelisid oo u shaqaysid adna meesha aad rabtid aa gaartid marka waa la isku shaqaysanayaa basically videogaas markuu cirka galo oo meel walba aado waxaad helaysaa 10,000 oo like ahayd iyo 30,000 1 minute viewerkii baad helaysaa top of that waxaad helaysaa waxa ay u yaqaanaan wax loo yaqaano organic maxaa lahaa viewers dad baa kaasoo raacaya videogaas oo arkaya oo lacagtii aad 10,000 ama 10 ama $5 maaragtay ay ku ogolaatay taas marka waxay samaynaysaa inaad markaas heshid maxaa la yidhaahdaa waxaad u baahnayd aad heshid marka saas ayaa si degdega waxaad ugu gaaraysaa shuruudihii ku buuxinaysaa wixii ka dambeeyana waad sugaysaa maalin walbana video waad samaynaysaa videoga waxa noqda mid dadka u faa'iideeya waxaa laga yaabaa video inaad daawatid oo faa'iide aad ka heshid haddii laakiin 15 daqiiqo aad daawanaysa aan waqti kaa lumiyey dee adaad faa'iide kuma jirto waxaa kugu daawadaa ma jirto marka dadkan wax anfaca u keeni hadday ahaan lahayd wax diina ku saabsan hadday ahaan lahayd wax adduunyadooda ku saabsan hadday ahaan lahayd wax aakhiradooda ku saabsan ha ahaato laakiin haddaad meesha lasoo fariisatid anagoo reerno faata huruusa anagoo reer sar ayaamu cunaa anagoo ilmo tuuryaro badaayino qabiilada soomaalida anagoo aan lafta geela badhaa reer libaxsan ka taabto hadda maalmadheed waxaan arkaya kuwa waxaan ahay kuwa tunka weyn adono tun weynidina ammaan tahay waxa igu cusub weye waxaan kaloo maqlaa kuwa laf weyn baa nahay laf weyn hadday jabto ma laba kabi karo waa mushkilo marka waxyaalahaas uskaga ah ee ummadda kale dilaya ha la imaanin adigu keligaa muraayadda isku eeg waxaa jira wax adiga kugu abuuran oo ilaahay uu ku siiye ilaahay qofka inta abuura iskama tago qof walba wuxuu siiyaa gifti ilaahay hadiyad buu siiyaa hadiyadaas raadi gudahaaga ku jirtaa waxaas aad ku fiican tahay soo hel dabadeedna dabagal kana miro dhalay sabir iyo dulqaad badan kadib waxaa dhacaysa bil 2 bilood 3 bilood kadib caawa in ay ku suurta gasha adiga videogan daawanaya in dhaqaalahaaga hadduu 500 bishii ahaa kusoo geli jirtay inay kusoo gasho 500 oo hore kusoo geli jirtay iyo 3,000 oo kale ama 2,000 oo kale ama 500 oo kale haba adigu sidaad maaragtay u dadaashid
oo videoyaashaadaas dadku ay u jeclaystaan. marka videoga in la jeclaysta maaha inaad xumaan samaysid ama gabar yaroo tiktoka joogta aad soo qaadato hala i daawado ma ahan markaas waxaa rabtaa inaad waxaa kusoo galaya in ay aad mara aad ku tukan karta ka xiran kartid calooshaadana aysan gelinayo xaaraan ah. marka come up with some sort of creativity dabadeedna ummadda lasoo horfariisto waxaas la wadaag ummadda. waxaa laga yaabaa inaad joogtid jilib ama jamaame ama kamsuma yaraantayda tego waa dhul aad u qurux badan markuu roob ku da'o barwaaqadaas soo duub. waxaa laga yaabaa inaad geeley tahay geeliina ka hadal iyo caanahasaad u maashid. waxaa laga yaabaa inaad tahay gabar cunto kariska ku wanaagsan cunto kariska bulshada usoo bandhig. waxaa laga yaabaa inaad tahay nin sports ku wanaagsan inaad tahay nin maxaa lahaa xisaabta ku wanaagsan. so waxyaalo badan baa kugu jira soo hel waxaas soo qaad ummadda la wadaag adigu faa'iidayso ummaddan oo faa'iiday waana guulaysanaysaa. waxaan jeclahay aasaaskii inuu idinkaga dhacay 2 video oo kale aan ka samayn doonaa arrintan dabeedna waxaan u gudbi doonaa waxa la yidhahda affiliate marketing oo ah kan mid aad iyo aad uga weyn. marka adoo kan haysta baanu waxaan isla aadi doonaa midkan ka weyn si waxaas ku dhaafin insha allahu tacaala. halkaa nagala soco anigoo cabdixafiid ayaa idinla socodsiinayay. cabdifataax cali shruuc ayaa ka dambeeya ah injinka ama motoorka waxaa la dhan isku xiraya wariye soomaaliyeed oo london ku nool oo walaalkay ah marka saaxiibkay ah adiga oo walaalkii soomaalida daawanayay madaxweynuhu wuxuu leeyahay hala wada naaxo. waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.